السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. سورة هذا أصحاب تقالب بارك الله فيكم. فيديو إن شاء الله تعالى وحين كسوق قادن دونا تاريخ كدوان تاريخه أي نسوق قادن جرني وحين نسوق قادن دونا وأي نديو يرندقون دونا وقت رسولك عليه الصلاة والسلام وحين نسوق قادن دونا صحابي جليلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وكمد مركاسي العشر المبشرين بالجنة طبنك جنة لو بشاري أها مركاسي حاسك أما زوجك لبدي هبلود رسولك عليه الصلاة والسلام سجاك لدنبيي ومركاسي لقلنا نيسي جري ذو النورين وسحابي وقلبه سكوت تعلقي قرآن كريم كنمدها قرادي وويناه يا صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام وحان الله شيئا رضي الله عنه وارضاه إن أصدق قرآنك وهل رقعت كتب كذي sidoo kale uu yiri law tahurat qulubuna lama shabi'at min kalam Allah azza wa jalla haday qulubteenu daahir ahaan lahayd kamay dharagteen hadalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan insha Allah soo qaadan doonaa taariikhdiisa qaabkii markaas loo dilay waxaana loo yaqaanaa amirul barara wa qatilul fajra amirkii markaas dadka baariyiinta ah ee muuminiinta wa qatilul fajra iyo kii ay dileen markaas dadkii faajiriinta ahaa ee Ilaahay daacadiisa ka baxay soo dhawaada barakallahu وأفريقيا نلت فيها الظفر. عثمان بن عفان مقعي سوى ميسترا وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصي بن كلاب وحي رسولك عليه الصلاة والسلام إيو عثمان بن عفان رضي الله عنه نسب كود أي كل من عبد المناف. عثمان بن عفان وحاو كل شيء مقالة مكة المكرمة سندي مرودية اللح سندود كذب رسولك عليه الصلاة والسلام داهان وحاو كير يهي شن سنادود. عثمان بن عفان أبيه وحلو لنشري عفان بن أبي العاص وحانوها مركزي جنعستة واوين إرهر بن أمية وحاو بحي جري مركزي سفر جنعسي وحانو جيريودي وقت الجاهلي عثمان بن عفان وأيدادي سيرتها يسوى كم قن سفر أي مركزي دحدة كجيريودي ويدي عثمان بن عفان وحلو لنشري أروى بنت كريز وحنا مركزي الشيء أم حكيم بيضاء بنت عبد المطلب ومركزي أي ولا لهاين رسولك عليه الصلاة والسلام أبيه أروى بنت كريز. عثمان بن عفان أبيه مركو دنتي كدب waxa guursaday gaalkii weynaa ee loo oran jiray Uqbata bin Abi al-Mu'ayt ee markaasi la dilay dagaalkii Badr isagana markaasi waxa uu dhashay lix caruur ah. Uthman bin Affan yaraantiisi waxa uu ahaa mid markaasi ay Quraysh ay aad u qadariso ay qiimayso waxa uu ahaa mid aad u xishood badan sidoo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanti fara badan uu siiyay hantidii uu aabihii uga dhintay ayaa uu ku sii dadaalay ganacsigii aabihii ayuu halkii ka sii waday markaasi safar ganacsi ayaa u gali jiray. Uthman bin Affan waxa uu ahaa mid uu Ilaahay ka ilaaliyay waqtiga jaahiliga xumaanta oo dhan waxaana uu ahaa mid aan sanam u sujuudin waxa uu yiri waligay ma heesin xubintayda tarankana kuma taaban gacantayda midig intii aan la mubaayacooday rasuulka calayhi salaatu wassalaam waligay wuxuu yiri khamri macabin waqtiga jaahiligi iyo islaamka toona sidoo kale waligay maan sinaysan وقت الجاهلي يا إسلام كتون رضي الله عنه وأرضاه مركا وحوها مذي قريش أي آدو قدرسو وأي آدو جعليهين كان وحا كتوسينيا ويوينكو مركي أبد كود عياد سينيان أما أيها سيان أي وحي ورنشرين أحبك الرحمن حب قريش لعثمان الله الرحمن كهاكو جعل هذا قريش جعيلك أي جعشة هي عثمان وكله سيداسي أي مركز ورنشرين. عثمان بن عفان دادي سمركي هي الأفر يصدن صندوق مال المالمها كمذا أي أبو بكر الصديق وحا وصو بندقي diinta islaamka Uthman bin Affan halkaas ayuu ku islaamay oo shahaadateynka uu qiray waxaanu ku islaamay gacanta markaas Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Uthman bin Affan waxa uu ahaa qofkii afaraad ee soo islaamay markaas raga. Abu Ishaq baa wuxuu yiri kana awwalu nas islaman ba'da Abi Bakr wa Ali wa Zayd bin Uthman fa kana rabi'u man aslama min ar-rijal waxa uu yiri qofkii ugu horeeyay soo islaama kadib Abu Bakr iyo Ali iyo Zayd waxa uu ahaa Uthman fa kana rabi'u man أسلم من الرجال. عثمان
Cuthmaan bin Affan wuxuu ahaa qofkii afaraad ee soo islaamay markaasi ragga. Cuthmaan bin Affan radiyallahu anhu intaanu soo islaamin ka hor waxaa jirtay riyo uu arkay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga warramay, waxaana uu yidhi dhowaan ayaa waxaan ka imi markaasi Shaam, annagoo dhexda soconna ayaanu dhexda seexannay, kadibna waxaan ku riyooday iyadoo markaasi midi dhawaaqaya oo uu leeyahay dadkiinan hurdow kaca فإن أحمدا قد خرج بمكة. أحمد أيا وحو كسو بحي مركاسي مكة، مركي أنو مكة نمد أيان وركاغا مغلي. مركا عثمان بن عفان رضي الله عنه وحاو كمدها صحابدي وقوه الرئيسي إيسو إسلامتي. رسولك عليه الصلاة والسلام مركي لفري إنو دعوة كرو قادو أو ددك ودا قارسيو إلهي سبحانه وتعالى وكسو دجيي فاصطع بما تومر وحلو فري مركاسي كلا دلاعي وددك وعدي أو شيك. أي رسولك عليه الصلاة والسلام بور أيو فولي هالكاسي أيو كردواقي reer iyo qoys ayuu markaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu dhawaaqay. Quraysh oo dhan ayaa ku soo ururtay. Kadibna waxa uu ku yiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam, bal ka warrama haddaan idinku yiraahdo buurta dabadeeda waxaa ka soo socda cadow doonaya inuu idinku soo duulo, may rumaysan lahaydeen? Markaasay yidhaahdeen haa, weligayo been kugumaanaan arag. Markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. waxaan idinka digayaa cadaab ilaahay oo kulul. Abu Lahab baa wuxuu yidhi tabban laka lihada jamactana, war hooga kuu sugnaadee waxaasad suugahaya buu ku yidhi. Ilaahay baa subxaanahu watacaala qur-aan soo dejiyey tabbat yada abi lahabin wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا أبو لهب وحولها لبينا أولك لورين شري عتبة إيا عتيبة، وحاني مركزي كالقبين لبها بلود الرسول عليه الصلاة والسلام رقية إيا أم كلثوم. وحان الله الشيقين عن الله قلقلين كدبناه مركي أي سورة داسي سودكتي أي أبو لهب إيا أم جميل oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala suuradan ku sheegay oo yiri xamaalat al-hatabi ayaa labadoodii inaan intay u tageen ayaa waxay amar ku siiyeen inay furaan labada hablood ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam, sidii ayaanay markaasi ku fureen. Warkaasi waxa uu noqday Cuthmaan bin Affan war farxad leh, isla markiiba waxa uu soo doonay markaasi Ruqayyah bintu Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam, inantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee Ruqayyah. Halkaasi ayaana uu ku guursaday عثمان بن عفان رضي الله عنه. وحاني أهايان مركاسي عثمان بن عفان يا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابا مركاسي زوج ومركاسي اسكو مناسبة واسكو سوبحي لما أنا أقوى ناكسن قفاركا وحي أهايان باليدي رقية إيا وزوجها عثمان. رقية هي زوج كذا مركاسي عثمان بن عفان رضي الله عنه. رسولك عليه الصلاة والسلام مركي دعودي كرلو قاضي ayaa Quraysh waxay bilaabeen inay muslimiinta markaasi dhibaan oo ay markaasi dhibaateeyaan. Cuthmaan bin Affan waxa uu kamid ahaa saxaabadii la dhibaateeyay ee markaasi diinta lagu dhibay, waxaana Cuthmaan bin Affan dhibay adeerkii oo loo dhan jiray Xakam bin Abi al-Aas. waxa uu markaasi uu ku yidhi madiinaan diintii aabayaasha ahayn ayaad noola timi. kadibna wuu figeeyay oo waa uu xidhxidhay, waxaana uu ku yidhi waa inaad ka noqotaa diintan cusub oo diintii aabayaasha aad ku noqotaa. Cuthmaan bin Affan arrinka wuu ka diiday. Markuu arkay sida uu ugu dhagan yahay diintiisa Cuthmaan bin Affan ayaa uu markaasi adeerkii iska sii daayay oo uu faraha ka qaaday. dhibaatadii muslimiinta la dhibayay ayaa waxay keentay inay u geeriyoodaan Yaasir iyo xaaskiisa markaasi Sumayya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu aad uga murugooday, una yidhi markaasi sabran ya aala yaasira fa inna mawcidakum aljanna. reer aala yaasirow sabra, ballankiinu waa janno. intaa kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu amray oo uu faray markaasi inay wadanka xabashida ay u hijroodaan, waxaana jooga buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi boqor markaasi aan agtiisa cidna lagu dulmin. Cuthmaan bin Affan iyo xaaskiisa Ruqayyah radiyallahu anhuma waxay kamid ahaayeen markaasi saxaabadii ugu horeysay ee u hijrooda markaasi wadanka xabashida. intaa kadib saxaabadu u hijrooday wadanka xabashida waxaa soo gaaray war ah in odayaashii waaweyneyd ee Quraysh ay markaasi islaameen. kadibna dib ayaa ay u soo noqdeen. markay Maka wax yar u jiraan ayaa ay ogaadeen inaan warkaasi waxba ka jirin. marka Cuthmaan bin Affan waxa uu kamid ahaa dadkii markaa dib u soo noqday ee magaalada Maka markaasi joogay ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka amray inay u hijroodaan magaalada Madiina. Cuthmaan bin Affan wuxuu ahaa mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam mulaasameeya, mar walba ka agdhow
oo markaasi dhacdooyinka iyo qur-aankii soo degayey iyo axdaafta dhacaysay oo dhan wuxuu ahaa mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka agdhow. cusmaan bin cafaan radiallahu canhu waxa u dhashay inan waxaana uu bixiyey cabdullaahi. cusmaan bin cafaan waxaa lagu naanaysi jiray abu cabdullaahi. waxa uu ahaa mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka agdhow intii uu joogay magaalada maka. kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu saxaabadiisa u idmay inay u hijroodaan magaalada madiina. cusmaan bin cafaan wuxuu u soo hijrooday magaalada madiina isaga iyo xaaskiisa ruqayata bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markii uu soo hijrooday ee uu yimi magaalada madiina waxa uu walaaleeyey cusmaan bin cafaan iyo saxaabiga la yidhaahdo aws binu thaabit oo markaasi ay walaala ahaayeen saxaabigii gabayaaga nebiga ahaa ee xasaan binu thaabitin radiallahu canhu. cusmaan bin cafaan intuu magaalada madiine joogay waxa uu bilaabay markaasi inuu ganacsigiisa halkii kasii wado. sidoo kale waxa uu ahaa mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam mulaasameeya. waxaanu ka mid ahaa quraadii waaweynaa ee saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waxa uu ahaa mid qur-aanku uu qalbigiisa markaasi ku tacalluqay oo qur-aanka kariimka ah ku dadaala. cabdiraxmaan assulami ayaa wuxuu yidhi xadathana aladiina kaanuu yaqra'uunana alqur'aana ka cusmaan binu cafaan wacabdullaahi binu mascuud wakayruhuma. waxaa noo warramay buu yidhi kuwii markaasi qur'aanka noo akhrin jiray sida cusmaan bin cafaan iyo cabdullaahi binu mascuud iyo kayrkood radiallahu canhum ajmaciin annahum kaanuu waxay ahaayeen buu yidhi idaa tacallamuu min annabiyi 10 aayaatin haddii ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka bartaan 10 aayadood lam yatajaawazuuha kamay gudbi jirin 10ka aayadood xataa yatacallamuu ilaa ay bartaan maa fiiha waxa ku sugan ee min alcilmi waalcamal ee cilmiya iyo camalfal ah. qaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen buu yidhi fatacallamna alqur'aana waxaanu barannay qur'aanka iyo walcilma cilmiga iyo walcamala jamiica iyo camalfalkaba dhammaan waanu wada barannay. walihaada kaanuu yubquuna muddatan fii xifdi suura. waxay ahaayeen kuwo markaasi suuradda markaa xifdigeeda muddo ku jira ayay ahaayeen. cusmaan bin cafaan waxa uu ka mid ahaa saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyiga ka qori jirtay markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyigu ku soo dego. sida caaisha radiallahu canha laga wariyey inay tiri waxa uu odhan jiray markuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyigu ku soo dego uktub yaa cusaym cusmaanow markaasi qor. cusmaan bin cafaan radiallahu canhu markay kuwii mujrimiinta ahaa ee markaasi dilayey ay gurigiisa ugu soo galeen seeftii ugu horreysay waxa uu isaga dhigay gacantiisa kadibna kafkiisaasi ayaa go'ay. markaasaa wuxuu yidhi amaa wallaahi innaha la awalu kafin khadtu lmufasala. waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay waa kafkii ugu horreeyey ee aan ku qoro markaasi suuradaha mufasalka ah waa suuratulqaaf ilaa qul acuudu birabinaas inta laga gaadhayo waa kafkii ugu horreeyey ee aan ku qoro buu yidhi. sidoo kale cusmaan bin cafaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka wariyey xadiiska ah khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama. sidoo kale waxa uu odhan jiray cusmaan bin cafaan innii la akrahu an ya'tiya yowmun laa anduru fiihi cahd allah. waxaan necbaystaa inay maalin ii soo gasho maalinkaasi oo aanan eegin markaasi oo aanan akhriyin cahdiga ilaahay ballankii ilaahay. waxa uga jeedaa markaasi qur'aanka kariimka ah. sidoo kale waxa uu odhan jiray adduunyada waxaa layga jeclaysiiyey 3 inaan quudiyo qofka ajoonaya iyo inaan marya siiyo qof bilaa marya ah iyo wa tilaawatu lqur'aani iyo inaan qur'aanka kariimka akhriyo. saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay yimaadeen magaalada madiine waxay la qabsan waayeen biyaheedii. biyahaasi ayaa ku adkaaday waxaana jiray markaasi ceel biyo macaan leh oo la odhan jiray bi'ru ruuma oo uu lahaa markaasi nin yahuudiya. kadibna cusmaan bin cafaan radiallahu canhu ayaa ninkaasi ka iibsaday waxaanu u waqfay markaasi muslimiinta inay cabbaan. sanadii 2 ee hijriga waxaa dhacay markaasi dagaalkii Badar. cusmaan bin cafaan radiallahu canhu dagaalka Badar kamuu qaybgelin. waxa uu hayay markaasi xaaskiisa inantii nebiga calayhi salaatu wasalaam ruqayata bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam oo markaasi xanuunsanaysay oo markaas furaashka jiiftay. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ku amray inuu markaasi uu iyada la joogo oo uu markaasi baxnaaniyo. haddaba si aynu u fahanno waxaa jirta markaasi shubhad ay fureen markaasi kuwii fitnada waday wakhtigii dambe ee khilaafada cusmaan radiallahu canhu. waxyaabahay ku eedayn jireen cusmaan radiallahu canhu waxaa ka mid ahaa inaanu ka qaybgelin dagaalkii Badar. haddaba sidee ayaanu uga qaybgelin? muxuu uga qaybgeli waayey? rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaalka Badar intaanu gelin waxa uu maqlay safar markaasi ay Qurayshi leedahay inuu markaasi soo socdo
oo hanti fara badan uu sido Abu Sufyaanna uu markaasi hogaaminayo. kadibna rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu go'aansaday maadaama ay muslimiintii dhibeen gaaladaasi Quraysheed oo xoolahoodii ay xoog ku qaateen in safarkoodaasi uu dhexda u galo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaniimadaasi ka soo qaato. arrinkaasi ayaa uu rasuulku maqsadka uga baxay magaalada Madiina ay ahayd. Cusmaan bin Cafaan diyaar ayuu ahaa inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam raaco mar walbana waa uu ka agdhowaa, laakiin inantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam Ruqayyah bintu rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam oo xanuunsanaysay oo weliba xanuun xoog uu hayay oo ay furaashka jiiftay ayaa rasuulku kula dardaarmay inuu markaasi la joogo oo uu markaasi baxnaaniyo. sidaasi ayay saxaabadu ku baxeen. waxaa dhacay dagaalkii Badr. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu nasriga siiyey muslimiinta. Cusmaan bin Cafaan radiyallahu anhu xaaskiisa ayuu baxnaaninayay oo ag joogay isagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku maqan dagaalkii Badr ayay geeriyootay. Cusmaan bin Cafaan isagoo markaasi ku sabraya oo aad uga murugaysan xaaskiisa oo aad u jeclaa ayaa markaasi ay ku soo aaseen xabaalaha Baqiic. markii ay ka soo noqdeen ayaa waxaa soo galay magaalada Madiina Zayd bin Thaabit radiyallahu anhu isagoo ku bushaareynaya markaasi in ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta u hiiliyey, rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu nabad qabo, sidoo kale gaalo badanna ay soo qafaasheen. Cusmaan bin Cafaan waxaa ku kulmay laba shay ayaa ku kulmay markaasi, isagoo xaaskiisa ka murugaysnaa iyo geeridii ay ka dhimatay iyo sidoo kale nasrigii iyo farxaddii muslimiinta. labadaasi ayaa qalbigiisa ku kulmay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu magaaladii Madiina soo gaadhay ayaa waxa uu maqlay in inantiisa ay geeriyootay. kadibna rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabrigeeda ayuu dul tegay, waa uu u duceeyey, ilaahayna subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf ayuu u weydiiyey. sidaasi ayuu markaasi Cusmaan bin Cafaan radiyallahu anhu uu dagaalkii Badr aan uga qayb gelin. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu wax ka siiyey oo Cusmaan bin Cafaan uu qaatay markaasi sidii qof ka qayb galay dagaalka Badr oo kale. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laka ajru rajulin shahida badran wa sahmahu, waxaad leedahay ajarka nin ka qayb galay dagaalkii Badr oo kale iyo markaasi qorigiisa ama intii uu markaasi qaniimada helayay oo kale ayaa aad leedahay. Cusmaan bin Cafaanna waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay oo culimadu ku tiriyaan inuu ka mid yahay saxaabada markaasi badriyiinta ah radiyallahu anhu. sanadii saddexaad ee hijriga waxay soo bahaystay gaaladii Quraysheed iyagoo doonaya markaasi jabkii gaadhay dagaalkii Badr inay ka soo kaftaan oo ay ka argoostaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa. ciidan fara badan oo lagu qiyaasay 300 oo kun oo ciidan ah ayaa ay ku soo baxeen. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markuu warkaasi maqlay waa uu diyaar garoobay, saxaabadiisana uu diyaariyey. markii ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay soo baxeen ay dhexda marayaan ayaa munaafiqi weynaa Cabdullah ibn Salool waxa uu markaasi ciidanka badh ayaa uu dib u la noqday, munaafiqiintii oo dhan ayaa dib u noqday. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxaa la wariyaa inay ku soo hadheen 70,000 oo ciidan ah. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dejiyey markaasi taatika dagaal oo aad u cajiib badan. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhabarka saaray buurta Uxud, sidoo kale 50 saxaabi oo markaasi waranley ah oo leebiya qaansahoodii watana wuxuu saaray buur. waxaanu saxaabadaasi ku amray inaanay halkaasi ka soo degin wax waloo dhaca. haddii ay shimbiruhu hilibkayaga ay guranayaan ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi halkaasi idinku ha ka soo degina. dardaaran adag ayuu siiyey. dagaalkii ayaa bilaabmay. gaaladii ayaa markii ugu horreysayba la jabiyey oo yaacay. kadibna saxaabadii buurta saarnaa ayaa waxay u qaateen inay gaaladu sidaasi ku jabtay oo dagaalkiina uu dhammaaday. kadibna buurtii ayay ka soo degeen iyagoo raba inay markaasi qaniimada ay qaataan. kadibna Khalid bin Waliid oo dagaalka markaasi la socday ayaa arkay saxaabadii buurta saarnaa oo buurta badankooda ay ka soo degeen oo wax yar uun ay ku harsan yihiin. kadibna halkii ayay ciidankiisu ku soo dhaqaaqeen, bartii baanay ka soo dhaceen. saxaabadii taagnaana halkii ayay ku dileen radiyallahu canhum. kadibna saxaabadii waxaa ku bilaabmay dagaal lama filaan ah, iyagoo sii jeeda ayaa xagga dambe lagaga yimi. safkii iyo taatikadii ay ku dagaalamayeen oo dhan ayaa khalkhal ku yimi. waxaana dhacday in saxaabi waliba uu goonidiisa markaasi u dagaalamo oo uu iska caabiyo. maalinkaasi saxaabo fara badan ayaa shahiiday radiyallahu canhum oo uu ka mid yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii Xamse. saxaabadii markii ay dhibaatadaasi dhacday ee markaasi dagaalkii uu adkaaday ee safkii iyo qaabkii loo dagaalamayay ay khalkhaleen ayaa saxaabada qaar ka mid ah ayaa markaasi dib u gurtay oo dib u noqday.
saxaabadaasi waxaa la wariyaa inuu ka mid ahaa Cuthmaan bin Affan radiyallahu anhu. saxaabada dib u noqotay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraan ayuu ka soo dejiyay uu markaasi ku cafiyay. Allahna wuxuu yiri innal ladina tawallaw minkum yawma altaqal jam'an inma istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim. innal ladina kuwa tawallaw jeestay minkum idikaydi kamida yawma altaqal jam'an maalinka ay kulmeen labada ciidan إنما استزلهم الشيطان إن كلمة هي شيطان أيا سنبريرحيي ببعض ما كسبوا وحي شقيستين وحكمدا ومركاسي أمرك رسولك عليه الصلاة والسلام أي خلافين بورتي أي كسو دقين الله وحيدي ولا قد عفى الله عنهم إلهي سبحانه وتعالى وعفي هو أدن بدافي إن الله ألا غفور الله أدن بدافك بدنوي حليم ودلقاتك بدنه وحي نوتقيدو أن مركاسي كوي فتنة ذكعيي in waxyaabaha ay Cuthmaan ku dhaleecaynayeen ay kamid tahay dagaalkan Uhud iyo dib u noqoshada isagoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu Quraan ka soo dejiyay in saxaabadaasi dib u noqotay uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala cafiyay oo uu markaasi u dhaafay. sanadii saddexaad ee hijriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam Cuthmaan bin Affan wuxuu u guuriyay inantiisii labaad ee Umm Kulthum waxaana u baxday markaasi Cuthmaan bin Affan naanaysta ah Dhin Nuurayn saxaabigii labada nuur u saaxiibka ahaa oo waxa uu guursaday oo isaga dambeeyay laba hablood oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam u dhalay. waxaana dhacday intaan uu guursan ka hor in Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay inantiisa Xafsa uu ka dhintay odaygeedu Cuthmaan bin Affan ay ka dhimatay markaasi xaaskiisii Ruqayya. kadibna Umar bin Khattab ayaa u yimi Cuthmaan bin Affan kadibna waxa uu ku yiri bal ka waran hadii aan ku guuriyo inantayda Xafsa maadaama uu xaaskaagii uu ka dhintay iyana uu odaygeedii markaasi uu ka dhintay. kadibna waxa uu ku yiri Cuthmaan bin Affan radiyallahu anhu arrinka waan ka soo fakirayaa. kadibna waxa uu kula soo noqday oo uu ku yiri qad bada li alla atazawwaja yawmi hada waxa ay soo baxday inaanan maanta ama doorkan aanan guursanin. kadib haddana Umar bin Khattab waxa uu u bandhigay Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr ayaa ka aamusay oo wax jawaab muusiinin. wax yar kadib Xafsa radiyallahu anha waxa soo doonay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. kadibna Abu Bakr ayaa ku yiri Umar bin Khattab waxa laga yaabaa inaad caloosha wax igu qabatay jawaaban ku siin waayay darteed. waxa uu ku yiri waxaan ogaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu hadal hayay oo rabay inuu soo doono manaan ahayn mid sirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam faafiya. haddaanu rasuulku soo dooni lahayna waan ka aqbali lahaa oo waan ka yeeli lahaa arrinkaagii. sanadii afraad ee hijriga Cuthmaan bin Affan waxa geeriyooday inankiisii Abdullah isagoo markaasi ay daadiisu ku dhaweyd 6 sanadood. waxaana la sheegaa in markaasi uu diig uu wajiga markaasi kaga dhuftay afkiisa kadibna halkaasi uu nabar kaga sameeyay. nabarkaasi ayaa ku xumaaday oo ku weynaaday kadibna sidaasi ayaa uu ku geeriyooday oo uu ku dhintay. sanadii 6aad ee hijriga ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu goostay inuu soo cimraysto. kadibna waxa uu ka soo baxay magaaladii Madiina isagoo wata markaasi 1400 oo saxaabi una soconin dagaal laakiin u socda inuu cimraysto oo hadigiisana soo kaxaystay. kadibna markii uu ku soo dhawaaday magaaladii Maka ayaa Quraysh maqashay kadibna waxay isu diyaariyeen dagaal iyo inay ka hor yimaadaan. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wadadii laga geli jiray ayuu ka bayray wada kale ayuu u bayray oo markaasi Rafa. kadibna hashiisii ayaa waxay fadhiisatay Xudaybiyah. halkaasi ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu doonay Quraysh inuu u diro markaasi qof ama saxaabi u soo sheega inaanu dagaal u soconin laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu cimro u socdo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii hore Umar bin Khattab ayuu doortay. Umar bin Khattab ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka cudur daartay una sheegay in nimankaasi ay cadaawad adag ka dhaxayso una filayo hadii uu tago inay markaasi dilayaan qabiilo dufaacdana aanay jirinin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam Cuthmaan bin Affan ayuu u diray. Cuthmaan bin Affan radiyallahu anhu ayaa Quraysh u tagay markay arkeen ay soo dhaweeyeen kadibna waxa uu sheegay risaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u dhiibay oo ah inaanu dagaal u soconin ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam u socdo inuu markaasi cimraysto. Quraysh arrinkaas way ka diiday waanay soo dhaweeyeen Cuthmaan bin Affan waxaanay ka dalbadeen inuu Kacbada ku dawaafo
laakiin waa uu diiday waxaana uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ka maqan anigu ma dawaafayo. Cuthmaan bin Cafaan markii uu raagay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam war waxaa soo gaadhay sheegaya in Cuthmaan bin Cafaan la dilay. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ayuu kula mubaayacotamay inay markaasi dagaalamaan haddii warkaasi uu dhab yahay ilaa ay markaasi ka geeriyoonayaan. Baycadaasina waxaa loo yaqaanaa baycatu ridwaan, baycadii raalli ahaanshaha. waxaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaasi kula mubaayacotamay 1400 oo saxaabi geed hoostii. ilaahay baana subxaanahu wa tacaala qur'aanka ku sheegay ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha yadullahi fawqa aydiihim laqad radiya allahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. saxaabadaasi ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka raali noqday rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaasi kula mubaayacotamay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabadiisa la mubaayacotamayay ayuu gacantiisii kale uu saaray, kadibna waxa uu yidhi wahaadihi licuthmaan, tanna markaasi waa Cuthmaan bin Cafaan radia allahu canhu. gacantiisii sharafta lahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa Cuthmaan halkiisii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugala mubaayacotamay. Cuthmaan bin Cafaan uu ka soo noqday Quraysh, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u soo noqday. halkaana waxaa ka dhacay markaasi heshiiska loo yaqaano sulxul xudaybiya oo Quraysh ayaa waxay soo dirtay Suhayl ibn Camr, kadibna halkaasi ayuu heshiis u ka dhacay. sanadii 8aad ee hijriga ayaa heshiiskii la kala saxeexday ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo Quraysh ay jabiyeen, waxaanay ku jabiyeen reer Banu Bakar ayaa waxay xulafo lahaayeen Quraysh, reer Bani Khuzaacana waxay xulafo lahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam. kadibna reer Banu Bakar ayaa soo weeraray markaasi reer Banu Khuzaaca oo dagaal ku soo qaaday. Qurayshna waxa ay markaasi siisay garab ayay siisay. halkaasi ayaa ay heshiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay la galeen ay ku jabiyeen. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciidan xoog leh ayuu soo kaxaystay. sidaasi ayaanu Maka ku furtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo dagaal la sheegi karaa aanu dhicin. haddaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu magaaladii Maka uu furtay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhammaan dadkii oo dhan waa u cafiyey, laakiin 4 nin ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam amar ku bixiyey in la dilo. oo waxa uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam uqtuluuhum wain wajadtumuuhum mutacalliqiina bisikaari alkacba. dila baa rasuulku yidhi macal haddii aad aragtaan iyagoo kacbada haysta oo ku dhegan. 4 nin waxaa ka mid ahaa markaasi cabdullaahi binu abi sarx oo markaasi la sheego inuu markiisa hore muslin ahaa, rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu waxyiga ka qori jiray, kadibna uu dib u gaaloobay oo Quraysh iyo gaalada u raacay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu amar ku bixiyey markaasi ninka halkii lagu arko in la dilo. haddaba cabdullaahi bin abi sarx waxay ay walaalo ka ahaayeen xagga naas nuujinta ay ka walaalahaayeen Cuthmaan bin Cafaan radia allahu canhu. kadibna Cuthmaan bin Cafaan ayuu gurigiisa isu qariyey oo uu markaasi magan galay oo uu hoos galay. Cuthmaan bin Cafaan radia allahu canhu ayaa hayay markii la kala degay markaasi la degay ayaa uu soo saaray, kadibna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u keenay. waxaanu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dalbaday inuu markaasi cafiyo oo uu la mubaayacotamo. markii dambe uu islaamay, islaamnimadiisina waa ay wanaagsanaatay. sanadii 9aad ee hijriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa soo gaadhay war ah in markaasi boqorkii Hiraqal uu markaasi uu isu diyaarinayo dagaal oo ciidan uu abaabulayo oo ururinayo rabana inuu ku soo duulo rasuulka calayhi salaatu wasalaam. warkaasi markuu soo gaaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa diyaariyey una sheegay markaasi in dagaal la galayo ghazwatu Tabuuk, dagaalkii markaasi Tabuuk oo markaasi ahayd meel aad u fog oo safarkeedu dheer yahay, iyadoo waqtigaasi markaasi lagu jiray waqti aad u adag oo markaasi xagaaya cadceedu ay kulushahay, biyaha iyo baadkuna ay yar yihiin, ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaalka iclaamiyey. waxaana ciidankaasi loo bixiyey jayshul cusra, ciidankii markaasi adayga ama waqtiga adag markaasi baxay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama oo uu safarku fog yahay, masaafaduna ay dheer tahay, saxaabaduna ay u baahan yihiin markaasi sahay fara badan oo waqti dheer la sii soconayo, rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku tirtirsiiyey in ciidankaasi ay diyaar gareeyaan oo nin waliba xoolihiisa uu markaasi sadaqadaysto. saxaabadii markaa sadaqaysatay waxaa ka mid ahaa Abubakar oo la wariyo inuu xoolihiisii oo dhan uu sadaqeeyey, ilaahay dartii u bixiyey. Cumar bin Khataab oo xoolihiisa markaasi kala badh bixiyey, iyo Cuthmaan bin Cafaan radia allahu canhu
oo xoolo fara badan bixiyey. ibnu shihaab waxa uu wariyaa inuu bixiyey Cuthmaan bin Cafaan maalinkaasi 940 neef oo geel ah, waxaanu kun kaga dhigay oo kunka ku buuxiyey 60 faras. sidoo kale waxa uu bixiyey xoolo fara badan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortiisa ayaa uu ku soo shubay. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam intuu saa u rogrogay xoolihii Cuthmaan bin Cafaan uu bixiyey ayaa wuxuu yidhi maa darra Cuthmaanu maa camila bacda alyowm. Cuthmaan bin Cafaan waxba dhibi maayaan, maanta wuxuu la baxay awgeed. haddaba intaynaan u gelin khilaafadii abubakar sidiiq radiallahu canhu, waxaynu ka warrami doonaa dardaaran uu sii siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo mawaaqif rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu bushaareeyey Cuthmaan bin Cafaan janno. xadiidka uu warinaya abu muusa alashcari, maalin maalmaha ka mida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa soo galay ceelka la yidhaahdo bi'ru ariis. kadibna abu muusa alashcari ayaa albaabkii ceelka hor istaagay. kadibna wuxuu yidhi waxaan maanta noqon doonaa albaabka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cid uu idmay mooyaane cid kale ma soo dayn doono. kadibna abubakar radiallahu canhu ayaa albaabkii soo garaacay. abu muusa ashcari rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u tegey, waa uu sheegay. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi i'dan lahu wabashirhu biljanna, u ogolow inuu soo galo waxaanad ugu bushaaraysaa janno. haddana cumar bin khadaab radiallahu canhu ayaa soo istaagay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi i'dan lahu wabashirhu biljanna. haddana Cuthmaan bin Cafaan radiallahu canhu ayaa soo istaagay. kadibna abu muusa alashcari ayaa rasuulka u sheegay in Cuthmaan bin Cafaan uu doonayo inuu soo galo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi i'dan lahu wabashirhu biljanna maca balwa tusiibuhu, u ogolow inuu soo galo waxaanad ugu bushaaraysaa janno iyo balaayo markaasi ku dhici doonta oo asiibi doonta. Cuthmaan bin Cafaan wuxuu yidhi alxamdu lilaahi wallahu almustacaan, ilaahay baan kaalmaystay. kadibna wuxuu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo labada dhinac ay ka fadhiisteen abubakar iyo cumar bin khadaab. kadibna ceelka soo jeedkiisii ayuu isaguna soo fadhiistay. sidoo kale xadiidka uu warinaya anas bin maalik radiallahu canhu ayaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa koray buurta uxud isagoo ay la socdaan abubakar asidiiq, cumar bin khadaab iyo Cuthmaan bin Cafaan radiallahu canhum. kadibna buurtii ayaa gariir samaysay. kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu lugta ku dhuftay, markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uskun uxud falaysa calayka ilaa nabiyun wa sadiiqun wa shahiidaan. wuxuu ku yidhi markaasi joogso uxudey, dushaada waxaa saaran uu nebi iyo sidiiq iyo markaasi laba shahiid ayaa saaran. rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu sii sheegay in cumar bin khadaab iyo Cuthmaan bin Cafaan ay markaasi dhiman doonaan iyagoo markaasi shuhada ah. sidoo kale xadiidka ay warinaysa caaisha radiallahu canha, waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u soo galay abubakar asidiiq isagoo rasuulka ay bowdadiisu faydan tahay. kadibna rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinkii u socday ayuu u dhameeyey. haddana waxaa u soo galay cumar bin khadaab radiallahu canhu, waxba iskama bedelin. markii Cuthmaan bin Cafaan radiallahu canhu uu soo idan dalbay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam fadhigiisii hagaajiyey oo maradiisii hagaajistay. kadibna markii uu Cuthmaan bin Cafaan ka baxay ayaa caaisha radiallahu canha baa weydiisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku tiri abubakar iyo cumar markay kuu soo galeen waxba iskama bedelin, laakiin Cuthmaan bin Cafaan markuu kuu soo galay fadhigaagii waad bedeshay. markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu almalaa'ika, miyaanan ka xishoonaynin ay malaa'igtu ka xishooto. xadiis kale ayaa wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi Cuthmaan bin Cafaan waa nin xishood badan, waxaanan ka cabsaday hadduu sidan igu soo galo inuu hawshii iyo dantii ugu socday uu ii sheegi waayo. xadiiska ay caaisha warinaysa radiallahu canha, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi asxaabtayda iigu yeedha. kadibna caaisha radiallahu canha ayaa waxay ku tiri ma abubakar asidiiq, markaasuu yidhi maya. markii lagu yidhi ma Cuthmaan bin Cafaan, markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi haa. Cuthmaan bin Cafaan markuu u yimid ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi soo dhowow. markaasuu haddana yidhi soo dhowow. markaasuu u dhowaaday ilaa uu dhegta rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo afkiisa saaray. kadibna arrin ayuu ku siraystay oo u sheegay. markuu arrinkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegayey, Cuthmaan bin Cafaan ayaa wejigiisu markaasi isbedelay. sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi Cuthmaan bin Cafaan radiallahu canhu oo kula dardaarmay, wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khamiis kuu geliyo, ee haddii ay doonaan munaafiqiintu inaad saarto khamiiskaasi hasaarin xataa talqaanii, ilaa aad markaasi igala kulmayso. Cuthmaan bin Cafaan radiallahu canhu maalinka gurigiisa lagu hareereeyey oo aynu u iman doonno ayaa markii lagu yidhi miyaanad dagaalamayn ayaa wuxuu yidhi radiallahu canhu
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه رسولك عليه الصلاة والسلام أيا بلن إيقا قاضي أنوغنا وحانا من نفتيدا كصبرة أيانا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sii sheegay Cusmaan bin Cafaan inuu dhiman doono isagoo shahiid ah sidoo kale markaasi axdaafta iyo waxyaabaha dhici doona ee fitnada ana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa dardaaran khaas ah siiyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday waxa khilaafadii muslimiinta qabtay Abu Bakr as-Siddiq Cusmaan bin Cafaan waxa uu kamid ahaa saxaabadii mar walba ka agdhow Abu Bakr radiyallahu anhu ee Abu Bakr markaasi talada muslimiinta uu weydiin jiray mar walba maruu la tashaday cidii uu ka dhigi lahaa markaasi waali ama markaasi madax uga dhigi lahaa Bahrain ayaa Cusmaan bin Cafaan wuxuu kula taliyay inuu uga dhigo markaasi Al-Alaa bin Hadrami radiyallahu anhu kadibna sidii ayaa Abu Bakr radiyallahu anhu ugu dhiibay waqtigii Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu waxa dhacday abaar aad u daran oo dadka biyaha iyo baadkuba ay ka go'een Abu Bakr radiyallahu anhu ay u yimaadeen iyagoo cabanaya waxa uu ku yiri Ilaahay baa faraj idin furi doona ee sabra kadibna Cusmaan bin Cafaan waxa uu yimid safar sida markaasi daqiiq markaasi aad u farabadan kadibna waxa ku soo ururay ganacsatadii magaalada Madiina iyagoo doonaya inuu markaasi ka iibiyo si ay iyaguna dadka ay uga sii iibiyaan kadibna waa uu la gorgortamay Cusmaan bin Cafaan radiyallahu anhu wuxuu yiri maxaa ii saaraysaan markaasi kadibna waxay ku yiraahdeen 10kiiba waxaanu ku saaraynaa 12 shaygii 10 dirham kugu taagnaa waxaanu ka siisanaynaa 12 dirham markaas wuxuu ku yiri waa la iga kordhiyay kadibna waxay ku yiraahdeen shaygii 10 kugu taagnaa 15 baanu ka siisanaynaa kadibna waxa uu ku yiri waa la iga kordhiyay kadibna waxay yiraahdeen halka ma dhaafi karno ayaa kaaga kordhiyay markaas wuxuu ku yiri radiyallahu anhu Ilaahay baa iga kordhiyay oo halkii xasana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qofka muuminka u laba jibaaraya 10 jeer kadibna waxa uu yiri radiyallahu anhu fa inni ushhidu Allah anni qad ja'altu hadha at-ta'ama sadaqatan ala fuqaraa'il muslimiin waxaan marxaati gelinayaa Ilaahay waxaan uga dhigay cuntadaasi iyo daqiiqdaasi sadaqo dadka markaasi fuqarada ah ee muslimiinta ah Ibn Abbas radiyallahu anhu oo warinayay markaasi riwaayadaasi ayaa wuxuu yiri habisla habeenkii baan riyooday kadibna waxaan ku riyooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaasi kaba nuura xidhan oo degdegaya kadibna waxaan ku rasuulka Ilaahay xageed u degdegaysaa kadibna waxa uu yiri Cusmaan bin Cafaan ayaa sadaqadaystay Ilaahay baana subhanahu wa ta'ala ka aqbalay arooskiisa iyo cursigiisa ayaan ku degdegayaa marka saxaabiga jaliilka ah waxa uu ahaa mid aad u gacan furan waxa laga yaabaa ganacsatada waqtigeedan inay ka faa'iideystaan baahida markaasi dadka ay ka faa'iideystaan oo waxa ay dadku ugu baahi badan yihiin inay markaasi qaaliyeeyaan waxana lagu yaqaanaa waxa suuqa ka go'an marka ay yimaadaan ama cid haysa qiimaha ay kordhisaa Cusmaan bin Cafaan iyadoo daqiiqda iyo burku ay ka go'an yihiin magaalada Madiina ayuu u yimid markaasi fursadaasi kadibna halkii uu lacag ka saari lahaa ayuu Ilaahay agtiisa dhigtay oo uu markaasi ku sadaqadaystay fuqaradii muslimiin waqtigii khilaafadii Umar bin Khattab radiyallahu anhu Cusmaan bin Cafaan waxa uu ahaa markaasi mid markaasi ka agdhow oo mar walba la taliya oo hiiliyo hooba markaasi la garab taagan waxaan u ahaa ayaynu oran karnaa qofka markaasi ku soo xigay oo dadku yaani Umar bin Khattab haday tiisa noqotay in Cusmaan bin Cafaan uu ku soo xigay sidaas oo kale ayuu ahaa waxyaabaha uu kula taliyay waxa kamid ahaa markii dawladda islaamku ay ballaaratay ayaa wuxuu kula taliyay baytul maalka in markaasi xoolaha ka baxaya la diiwaan geliyo oo markaasi la qoro waqtigii Umar bin Khattab radiyallahu anhu sidaas ayaanu sameeyay Umar bin Khattab oo waxa la sameeyay diiwaanu baytul maal oo wixii xoolaha laga bixiyo in markaasi la qoro oo la diiwaan geliyo 26kii Dhulxijja subax Arbaca ah ayaa markaasi Umar bin Khattab isagoo dadka salaadii subax tujinaya ayaa mujrimkii Abu Lu'la al-Majusi intuu midi soo qaatay ayuu 9 meelood uu ka geliyay Umar bin Khattab radiyallahu anhu nabarka ugu weyn wuxuu ahaa mid uu markaasi kaga dhuftay caloosha kaasi ayaanu noqon doonaa ka uu dhiman doono radiyallahu anhu inta kadib Umar bin Khattab waxa uu noqday markaasi mid xanuunkaasi u jiifa oo dhaawacaasi u jiifa muddo 3 cisho ah ayuu markaasi xanuunsanay radiyallahu anhu isagoo hamigiisa ugu weynina uu ahaa inuu markaasi cidii muslimiinta si maamuli lahayd ee khaliifada u noqon lahayd inuu markaasi cayimo kadibna Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu magacaabay 6 saxaabi
waxaana uu ku yidhi lixdii naasi muddo 3 cishaa markaan dhintay kadib waa inaad amiir iska soo saartaan. lixdaasina waxa ay kala haayeen Cusmaan bin Cafaan, Cali bin Abi Talib, Cabdiraxmaan bin Cawf, Sacad bin Abi Waqaas, Zubayr bin Cawaam iyo Talxata bin Cubaydillah. waxaa kaloo uu kula sii dardaarmay haddii lixdii naasi 3 iyo 3 kala noqotaan oo kala bixi weydaan waxa idin kala saaraya markaasi Cabdullaahi bin Cumar radiyallahu anhu, Cumar bin Khataab inankiisii oo isagu kuma jiro khilaafada kuma jiro cidda la wareegaysa, laakiin waxa uu ka dhigay haddii 3 iyo 3 ay u kala baxaan oo ay kala bixi waayaan inuu markaasi isagu uu kala saaro. haddii aad sidaa ku kala bixi weydaanna waxa uu kula sii dardaarmay inay markaasi amiir ka dhigtaan cidda uu raaco Cabdiraxmaan bin Cawf radiyallahu anhu. kadibna Cumar bin Khataab radiyallahu anhu wuxuu geeriyooday maalin axada kowdii markaasi Muharram 24 hijriga. kadibna markii la soo aasay Cumar bin Khataab radiyallahu anhu ayaa lixdii shuurada ee uu magacaabay markaasi Cumar bin Khataab ay fadhiisteen. kadibna Cabdiraxmaan bin Cawf radiyallahu anhu ayaa wuxuu ku yidhi lixdeenani 3 tanaasusho oo 3 u tanaasusho ayaa uu ku yidhi oo 6 qof in la kala saaro way adagtay, laakiin 3 iyagu ha tanaasulaan 3na aynu sii kala saarno. kadibna Zubayr bin Cawaam radiyallahu anhu wuxuu u tanaasulay Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Talxata bin Cubaydillahna Cusmaan bin Cafaan, Sacad bin Abi Waqaasna Cabdiraxmaan bin Cawf. marka waxaa soo hadhay 3 musharax baa soo hadhay, waa Cali bin Abi Talib, Cusmaan bin Cafaan iyo Cabdiraxmaan bin Cawf radiyallahu anhu. Cabdiraxmaan bin Cawf radiyallahu anhu isaguna uu ka tanaasulay. waxaa isku soo hadhay Cali bin Abi Talib iyo Cusmaan bin Cafaan radiyallahu anhu. Cabdiraxmaan bin Cawfna wuxuu noqday markaasi maamulkii shuurada iyo talada maamulayay. salaadahana muslimiinta waxaa tujinayay oo uu kula dardaarmay Cumar bin Khataab intaa doorashadu socoto inuu markaasi tujiyo Suhayb ar-Ruumi radiyallahu anhu. kadibna Cabdiraxmaan bin Cawf wuxuu bilaabay hawshiisii. maalinkii koowaad marka sida loo kala baxay ayaa wuxuu bilaabay inuu cid walba weydiiyo ra'yiga oo uu markaasi ka qaado oo joogtay magaalada Madiina. saxaabadii waaweyneyd iyo markaasi taabiciintii iyo markaasi umaradii markaasi magaalooyinka iyo madaxdii ciidanka cid walba waa uu u wareysi tagay. ma Cusmaan bin Cafaan baynu ka dhignaa mise Cali bin Abi Talib? cid walba u wareystay. waxaa la sheegaa inuu xataa wareystay dumarkii oo daaha dabadooda uu ka wareystay ciddii markaasi khilaafada muslimiinta loo dhiibi lahaa. 3dii cisho markii ay dhammaatay ayaa Cabdiraxmaan bin Cawf salaada subax maalinkii Arbaca 4 Muharram 24 hijriga 6dii markaasi November 633 ayaa waxaa lagu kulmay masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. Cabdiraxmaan bin Cawf ayaa soo cumaamaday. kadibna markii salaadii subax laga baxay ayaa Cabdiraxmaan bin Cawf soo istaagay. kadibna waxa uu safka hore soo fadhiisiiyey 5tii saxaabi ee markaas ahlu shuura ahaa. kadibna halkaasi ayaa uu ka khudbadeeyay waa shahaatay radiyallahu anhu. kadibna wuxuu yidhi amma ba'du ya Caliyu inni qad nadartu fi umuri an-nasi falam arahum ya'diluna bi Cuthmana fala taj'al ala nafsika sabila. waxa uu ku yidhi Caliyow waxaan eegay umuurtii dadka ayaan eegay, ra'yigii dadka ayaan soo qaaday. kadibna waxaan arkay Cusmaan bin Cafaan cid ay la dhigayaan inaan u jirin ee fala taj'al ala nafsika sabila, naftaada waxba ha ku qaban ee sidaas markaa ku caloolsamow oo ku aqbal ayuu ku yidhi radiyallahu anhu. kadibna faqaala markaasa wuxuu yidhi oo uu ku yidhi markaa Cusmaan bin Cafaan ubaayicuka cala sunnati Illaahi wa rasuulihi wal khaliifatayn min ba'di, waxaan kugula baayactamayaa sunnada Ilaahi iyo rasuulkiisa iyo labadii khaliife ka dambeeyey. fabaayacahu nnaasu almuhaajiriina wal ansaar. kadibna sidii ayay kula mubaayacotameen dadkiina muhaajiriintii iyo ansaartii radiyallahu anhum. Cusmaan bin Cafaan radiyallahu anhu waxaanu soo arooriyaa saaxibu التمهيد والبيان أن علي بن أبي طالب أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأها كي لمبايعه تمي عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف كذب رضي الله عنهم. سيداسي أي مركز عثمان بن عفان وكن نقضي خليفك مسلمين تا أي مركز صدحات. عثمان بن عفان رضي الله عنه وحو خلافة قبطي بلوغا سندي أفري لباتنكي هجرية لحب قولي أفري أفرتنكي waxaanu khilaafadahay muddo 12 sanadooda waana khaliifka markaasi ugu muddada dheer leh 4 khulafaa ur-raashidiin radiyallahu anhum. Uthman bin Affan hadaba waqtigiisa intii hore dawladdu iyo islaamku waxay ahaayeen kuwo midaysan, laakiin aakhirkii ama dabayaaqadii waxaa dhacday markaasi fitnadii lagu dilay Uthman bin Affan radiyallahu anhu oo aynu ka warrami doono. Hadaba waxyaabaha uu qabtay Uthman bin Affan intuu hayay khilaafada muslimiinta waxaa kamid ah inuu markaasi ummadda ku ururiyay hal kitaab oo kaliya
waxaana dhacday markaasi markuu islaamku faafay ee uu gaadhay markaasi Armenia iyo Azerbaijan ayaa halkaa waxaa ku kulmay ciidankii Shaam iyo ciidankii Ciraaq ka yimid kadibna waxay isku khilaafeen quraanka kariimka ah kadibna saxaabiga Xudayfa ibn al-Yaman ayaa arkay ciidankaasi iyagoo isku khilaafaya markaasi quraanka kariimka ah waxaana la sheegaa mid inuu akhrinayay wa atimul hajj wal umrata lil bayt midna uu akhrinayay wa atimul hajj wal umrata lillah oo mid waliba uu lahaa aniga saxan iyo aniga saxan kadibna markuu arrinkaasi arkay Xudayfa waxaanu ahaa saxaabi markaasi aragti dheer waxa uu oran jiray radiyallahu anhu dadku waxay weydiin jireen rasuulka khayrka aniguna waxaan weydiin jiray sharka si aanan markaasi ugu dhicin waxa uu u yimi Uthman bin Affan radiyallahu anhu waxaanu ku yiri adrik hadhihi al-ummata qabla an yakhtalifu ikhtilaf al-yahud wan-nasara ummadan ka gaad intaana iskhilaafin sidii yahuud iyo nasara isku khilaaftay oo kale kadibna arrinkii ayuu uga waramay Uthman bin Affan radiyallahu anhu wuxuu sameeyay gudi uu hogaaminayo Zayd bin Thabit radiyallahu anhu iyo saxaabo kale oo kamid ah saxaabadii waaweyneed oo markaasi Qurayshiyiin ah oo luqadda Carabiga si fiican markaasi u yaqaana kadibna waxa uu ka dalbaday Xafsa bint Umar radiyallahu anha oo haysay musxafkii waqtigii Abu Bakr radiyallahu anhu waxa uu ka dalbaday inay u soo dhiibto si uu uga sameeyo nusakh kale kadibna uu ugu soo celiyo halkaas ayaa saxaabadii uu hogaaminayay Zayd bin Thabit radiyallahu anhu oo waqtigii Abu Bakrna waa Abu Bakr u xil saaray rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaamna ka qori jiray markaasi waxyiga saxaabiga jaliilka ah ayaa ka sameeyay markaasi dhowr nuskhadood kadibna waxa uu u qaybiyay Uthman bin Affan radiyallahu anhu magaalooyinkii waaweynaa sida markaasi Kuufa, Basra, Bahrain iyo Shaam si markaasi ugu noqdo marjic marka loo noqdo sidoo kale waqtigii Uthman bin Affan radiyallahu anhu waxa uu balaariyay masaajidka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam maadaama ay dadkii bateen oo ciriiri uu ku noqday waqtigiisa ayaa waxa uu sameeyay markaasi ballaarin masaajidka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam sidoo kale waqtigiisi waxa batay futuuxaadka iyo in magaalooyin fara badan la furto waxay gaadhay dawladda islaamku bari waxay ka gaadhay Azerbaijan iyo Armenia galbeedna waxay ka gaadhay markaasi Afrika oo la furtay sidoo kale Uthman bin Affan wuxuu sameeyay ciidankii ugu horeeyay ee markaasi badda ee dawladda islaamka waxaana dhacay markaasi dagaalkii ugu horeeyay ee muslimiintu ay ku dagaalamaan badda oo ahaa markaasi dagaalkii loo yaqaanay macrakatu dhaatu sawari oo ahaa markaa dagaal adag oo dhex maray muslimiinta iyo markaasi Roomaanka oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimiinta uu nasri weyn uu ku siiyay iyadoo ahayd markii ugu horeysay sidoo kale imkaaniyaadkooda iyo waxay sitaana ay haayeen wax yar oo markaasi bilow ah oo aan horumar fara badan lagu sameeynin haddana dagaalkaasi waxa guushu ay raacday muslimiinta oo waxay sameeyeen in markii ugu horeysay intaanu dagaalku bilaaban ay yiraahdeen ma waxaan ugu la dagaalamaysan bariga ma isla tagnaa oo dhulka aynu isla tagno mise badda ayaa ku dagaalamaysan kadibna ciidanka Roomku maadaama ay arkayeen inay badda ku adag yihiin waxay yiraahdeen badda ayaanu ku dagaalamaynaa muslimiintu Ilaahay ay isku xidheen waxa la sheegaa inay akhrisanayeen suuratul anfaal kadibna markii ay fakireen waxay sameeyeen dooniyahoodii ayay isku xidheen markii ay isku xidheen ayaa markay gaadhaan dooniyaha kuwa kale ayay ku soo xidhaan kadibna waxay noqotay meeshiiba sidii dhulkii oo kale kadibna dooniyihii ayaa la isaga gudbaa gacanta ayaa la isla gaadhay wuxuu noqday dagaal markaasi gacanta laga dagaalamayo halkaasi ayaa waxa ku geeriyooday muslimiin fara badan sidoo kale gaalo fara badan ayaa laga dilay dagaalkaasi badii ayaa waxay noqotay dhiig bay noqotay xeeligii badana waxa daatay dadkii dagaalkaasi ku dhintay Ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimiinta nasri weyn ayuu siiyay gaaladana halkaasi ayaa lagu jabiyay waxyaabaha cajiibka dagaalkaasi dhacay waxa kamid ah in hogaamiyihii ciidanka muslimiinta hogaaminayay oo dooni yar watay oo la oran jiray Abdullah bin Abi Sarh ayaa waxa ku soo xidhatay dooni weyn oo markaasi gaalada ah kadibna waa ay jiidatay kadibna mid kamid ah muslimiinta ayaa intuu biyihii ku dhacay kadibna silsiladii weyneed ayuu afka hore markaasi uu ka furay kadibna intii dambe ayaa gooday sidaas ayaanu ku badbaadiyay markaasi hogaamiyihii ciidanka markaasi hogaaminayay dabeeyaqada khilaafadii Uthman bin Affan radiyallahu anhu waxa kacday markaasi fitno waxaanay ka bilaabatay magaalooyinka Kuufa, Basra iyo Masar waxay ka bilaabatay markaasi magaalooyinkaasi in cidda Uthman bin Affan radiyallahu uu soo magacaabo mar walba ay dalbadaan in laga bedelo iyagoo markaa wax ka sheegaya oo ceebaynaya kadibna fitnadii waa ay sii kacday dadkii kiciyay waxa kamid ah nin Yahuudiya oo la oran jiray markaasi Abdullah bin Saba oo xagaasi Yaman ka soo baxay isagoo markaasi iska dhigaya muslim ayaa wuxuu soo dhex galay markaasi mujtamaci kadibna wuxuu doonay inuu fitnadaasi ka kiciyo magaalada Madiina
way u kici weyday haddana waxa uu tegay shaamna waxa haystay Mucaawiya iyana uu ku guuleysan waayay kadib haddana Kuufa iyo Basra ayuu soo maray halkaas oo ka samaystay markaasi dad fitnadaasi kiciya markii dambena waxa uu degay oo saldhig u noqday markaasi Masar halkaas ayuu fitnada ka soo kiciyay isagoo markaasi shubahaad fara badan furay oo Uthman bin Affan radiyallahu anhu iyo cid uu soo magacaabo uu ku dhaleecaynayo haddaba saddexda magaalood kooxihii fitnada kicinayay ayaa markaasi isku xirmay oo fursada yar ama wax yar ee dhacaba waxay doonayeen markaasi inay ka faa'iideystaan oo fitnadaasi ay kiciyaan haddii wax yariba ay dhacaan waxay sameynayeen inay fitnadaasi kiciyaan waxaana kula dardaarmay ninkaasi qolooyinkii markaa fitnada kicinayay waxa uu yiri marka u horeysa waxa ku bilowdaan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ina dadka wanaaga fartaan oo xumaanta ka reebtaan waayo dadku waa ay markaa qofka wanaaga faraya xumaanta ka reebaya way u dabacsan yihiin waanay maqlaan kadibna arrinkaasi ayuu kula dardaarmay inay bilaabaan inay dadka wanaaga faraan xumaantana ka reebaan haddana in khilaafooyinka Uthman bin Affan uu soo magacaabayo inay dhaleecayaan oo markaasi ay ceebayaan marka dambena inay Uthman ay ku kacaan oo ay doonaan markaasi inuu khilaafada ka dago oo uu baneeyo iyagoo markaa ku andacoonayay inaanu markaasi xaq u lahayn oo markaa shubahaad fara badan ku furayay dadka muslimiinta ah Uthman bin Affan radiyallahu anhu saxaabadiisa ayuu la tashaday markaa fitnadan iyo warkan markaa faafaya ee la sheegayo kadibna waxa ay yiraahdeen saxaabadii markay u kuurgaleen waa arrin habeenkii ama meelo khaas ah laga shaqeynayo waa shay la dabarayo ayay ku yiraahdeen kadib waxay sameeyeen mowsimkii xajka ee sanadii 35 hijriga ayaa kooxihii fitnada waday waxay ku heshiiyeen inay hal mar soo baxaan iyagoo markaa u soo baxaya inay xajka tagayaan oo soo xajayaan kadibna markay dhexda marayaan ayaa dadkii xajka tagayay intay ka leexdeen ayaa ay ku soo leexdeen magaaladii Madiina oo markaasi ay cunaqabateeyeen oo ay hareereeyeen iyadoo tiradooda lagu qiyaaso inay 4,000 ahaayeen kadibna markii ay magaaladii Madiina hareereeyeen Uthman bin Affan radiyallahu anhu waxa la sheegay inuu Ali bin Abi Talib u diray kadibna maxaa ka cabanaysaan markii cabashooyinkoodii ay sheegeen kadib markii dambe waxay ku qanceen inay markaasi dib u noqdaan kadib koox waliba markii ay xageedii u noqotay ee reer Masar ay Masartooda u kaceen reer Kuufana ay Kuufadooda u kaceen ayaa waxa dhacay qoladii Masar u kacday ayaa nin markaa faras wata ayaa kolna u soo dhawaada kolna ka durka wakaanama inuu leeyahay kaalay ay qabto oo kale kadibna ninka ay soo qabteen waa ay wareysteen markaasi kadibna waxay ka soo saareen warqadaasi oo markaa ay ku qoran tahay in Uthman bin Affan uu amray waaligiisii Masar joogay in markii kooxdaasi ay u timaado inuu laayo kadibna kooxihii fitnada waday dhammaan hal mar ay soo wada noqdeen iyagoo markaa haddana dib u soo hareereeyay magaalada Madiina waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah kooxdan Masar haddii ay warqadu u timi sidee ayay ku ogaadeen kuwa Kuufa iyo kuwa Basra waxaa jirta markaasi in magaalada Madiina dhexdeeda ay jireen kuwa fitnada wada oo munaafiqiin ah marka waxaa suuragal ah inay waraaqaha ay hal mar u wada direen kooxaha fitnada waday oo kooxdan ay u direen in Uthman bin Affan uu soo qoray warqadan ah in la laayo kooxihii kale ee Kuufa iyo markaasi Basrana ay markaasi u qoreen in markaasi Uthman bin Affan uu kooxdii Masar u amray in la laayo kadibna adigu hal mar ayaa ay haddana soo wada noqdeen magaaladii Madiina ayaa ay markaasi hareereeyeen saxaabadii rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaa Uthman bin Affan radiyallahu anhu ka dalbaday inay markaasi la dagaalamaan oo ay difaacaan laakiin Uthman bin Affan radiyallahu anhu arrinka waa uu diiday inay markaasi ay markaa dagaalamaan magaaladii Madiina ayay gudaha u soo galeen kooxdii fitnada waday ilaa gurigii Uthman bin Affan radiyallahu anhu ay markaasi ay hareereeyeen saxaabada ayaa u imanayay Ali bin Abi Talib Abu Hurayra saxaabadii waaweynayda rasuulka kaleey salaatu wasalaam muhaajiriin iyo ansaar iyagoo ka dalbanaya nimankan in markaasi lala dagaalamo oo markaasi la laayo laakiin Uthman bin Affan radiyallahu anhu waa uu ka diidayay waxaanu ku dhaarinayay inaanay dagaalamin waxa Uthman bin Affan radiyallahu anhu markaasi difaacay oo gurigiisa hor istaagay Hassan bin Ali Abdullah bin Zubayr Muhammad bin Abi Talha iyo Marwan bin Hakam iyo Sa'id bin Aas saxaabadaasi ayaa markaasi hor istaagay kooxdii fitnada waday guriga Uthman bin Affan radiyallahu anhu cunaqabatayn ay saareen waxaana la sheegay inay biyaha iyo cuntadaba u diideen inay u galaan Uthman bin Affan radiyallahu anhu waxaana cunaqabataynayeen muddo 40 maalmood guriga Uthman bin Affan radiyallahu anhu
oo biyaha iyo cuntadaba loogu soo gelinayay markaasi si qarsoodiya. kadib xisaarkii ayaa sii adkeeyeen, waxaana dhacday in markaasi muddadii xajku ay soo gabagabowday. sidoo kale ay maqleen markaa dadkii xajka ka imanayay inay xagga Madiina u soo kacayaan, iyo ciidamo kale oo ka imanaya markaasi gobolada kale oo doonaya inay difaacaan Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu. kadibna waxay dooneen si dhaqso ah inay markaasi Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu ay u dilaan, oo arrinkan ay gacanta la galeen aanay ka saaraynin ilaa ay Cuthmaan bin Cafaan dilaan mooyaane. kadibna gurigiisii ayay isku soo qaadeen. waxaa markaasi ku dhaawacmay oo guriga Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu ku jiray oo difaacayay Xasan bin Ali, Cabdullaahi bin Zubayr iyo Maxamed bin Xatab. kadib Cuthmaan bin Cafaan wuxuu ku qanciyey markii dambe in markaasi uu banaanka u saaro saxaabadii difaacaysay si aanay isugu dhicin kooxdan fitnada wada ee gurigiisa soo galaysa iyo saxaabadaasi difaacaysa. kadibna gurigiisa waxaa ku soo hadhay Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu iyo qoyskiisa oo kaliya ayaa ku soo hadhay maalinkaasi isagoo markaasi sooman. kadibna rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku riyooday, oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi yaa Cuthmaan afdir cindana, agtayada markaasi annaga nala soo afur. kadibna wuxuu yaqiinsaday in maalinkaasi ay nimankani ay dilayaan. Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu waxa uu galay markaasi salaad, waxa uu ku tukaday suuratu Taaha ma anzalna calayka alqur'aana litashqa. waxa uu ahaa markaasi mid xaafida oo carabkiisu uu aad u dhaqso badan yahay qur'aanka kariimka markuu akhrinayo. kadibna kooxdii fidnada waday ayaa soo galay gurigii Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu isagoo markaa akhrinaya qur'aanka kariimka ah. kadib kii ugu horeeyay ee soo galay ayaa Cuthmaan bin Cafaan wuxuu ku yidhi baynii wa baynaka kitaabullah, adigii aniga waxaa inoo dhexeeya kitaabka Ilaahay. kadibna waxaa la wariyaa inuu ninkaasi iska noqday. kadibna kii labaad ee soo gala ayaa ku qabtay markaasi Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu, xuurta ayuu ku qabtay oo ciijiyey. kadibna waxa uu doonay inuu seeftiisa ku dhufto. kadib Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu gacantiisa ayuu isaga dhigay, gacantiisa ayaa gooday. kadibna wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee waa kafkii aan ku qoray markaasi aayaadka mufasalka ah ama suuradaha gaagaaban ee qur'aanka kariimka ah, waa gacantii aan ku qoray ayaad goysay ayuu ku yidhi radiyallahu anhu ardaah. kadibna halkii ayay Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu ay ku dileen. waxaana la sheegaa ninkii dilay inuu ahaa nin Masri oo la odhan jiray almowt alaswad lacnatullaahi calayhi, ayaa markaasi dilay Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu. xaaskiisa ayaa isaga dhigtay markaasi seeftii ay ku dhufanayeen. kadibna waxaa go'day gacanteeda, faraheeda hore ayaa markaasi go'ay. waxaana la dilay Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu maalin jimco ah isagoo sooman 18kii dulxija 35kii hijriga, isagoo ay da'diisu markaasi tahay 82 sannadood radiyallahu anhu wa ardaah. waa uu ku sabray markaasi fitnadaasi. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaana kula dardaarmay bal sawiro amiirkii muslimiinta oo dhan oo markaasi xukunkiisu uu gaadhay mashriq iyo maqrib uu gaadhay, haddana ay markaasi koox yari intay hareeraysay ku sabray oo aan dalban in markaasi la dufaaco ama isaga daraaddii loo dagaalamo, laakiin ku sabray Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo ajar kaga dalbaya. kadibna gurigiisa dhexdiisa markaa lagu dilay radiyallahu anhu wa ardaah. waxay ku tusinaysaa markaasi geesinimadiisa iyo iimaankiisa iyo sabirkiisu intuu la ekaa. Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu taariikhdiisa cibro fara badan ayaa ku jirta. waxaa laga qaadanayaa duruus aad u fara badan. xaafid kitaabka Ilaahay xifdisan, waxa uu ahaa saxaabada ganacsatadii waaweyneyd oo muxsina oo xoolihiisa markaasi dar Ilaahay u bixinaya ayuu ahaa radiyallahu anhu. waxa uu ahaa mid naxariis badan, waxa uu ahaa mid xikmad badan radiyallahu anhu wa ardaah. waxa uu ahaa mid ku sabray oo aan naftiisa markaasi aan u difaacin ama khiiratu nafsi aanay qaadin, iyadoo markaa wax walba laga sheegayo oo markaasi la caayayo oo cirdigiisii meel lagaga dhacayo, haddana radiyallahu anhu naftiisa umuu dagaalamin oo dad umuu laynin, umuu xidhxidhin, laakiin waa uu ku sabray ilaa ay markaa ugu soo galeen magaaladii uu joogay iyo gurigiisii ay hareereeyeen. haddana aan naftiisa difaacayo aan u dagaalamin, laakiin ka fakirayay markaasi aakhiradiisa iyo dardaarankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu siiyey iyo in fitnadaasi ay ku dhici doonto, laakiin markaasi uu ku sabro oo uu ku ixtisaabo. kuwaa fitnada waday iyagoo wax walba ka sheegaya ayuu haddana keebaa doonaysaan uu ku lahaa, oo keebaan idiin soo magacaabaa uu ku lahaa, oo mar walba uu doonayay inuu raalli geliyo
oo markaasi uu raali gelinayay oo cidda ay doonaan uu u soo magacaabay radiyallahu anhu kay diidaanna markaasi uu casilayay runtii taariikhdiisa waxaa ku sugan cibro fara badan ma soo koobi karayno wixii aan saxay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa weeyaan wixii aan khaldayna waa shaytaanka iyo naftayda runtii waanay adag tahay qisada Cuthmaan bin Cafaan inaan markaasi soo koobo waxyaabo fara badan ayaan dareemayaa inaan ka tegay oo aanan markaasi ehel u hayn inaan taariikhda Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu aan ka warramo waa isku dayay inaan ka warramo taariikhda Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu anhu iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ka rajaynayo inaynu u baahannahay taariikhda Cuthmaan bin Cafaan in la diraaseeyo oo la faafiyo oo cibro fara badan markaasi lagala soo baxo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وصهر النبي صبور